sidoo kale waxa muhiim ah waxa weeyaan inaan ogaano magacan Ilaahay subhanahu wa ta'ala al-Kafiya waxa Ilaahay ku weydiisanaysaa Ilaahay inuu ka kaafiyo sharta ay kula maagan yihiin hebel iyo hebel iyo hebel cid ku dulmis waxa leedahay Allahumma kfini sharra fulan wa fulan wa fulan wa fulan عدي كدل مسي أو ظلمي كوهيسة إلهي بعد كوي دي سنة يسمى عساس إله أديك كافي جاهن كوي دي سنة يجا كافي زد شرط هبل هي شرط هبل هي شرط هبل ويلما جيه إلى الدنيا ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من رجل أو من قوم هادو كبق قف نبي أو إنه الشر صوّد أوجاد أما قاموا كعب صلاة نبي وحي كد عيسى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم دعاء ذا النبي وأخرج قالها الضوء كعب صلاة دعاء ذا النبي كهر بيجر إله شرته ذا كل إله شرته ذا كام مجنن إله سبحانه وتعالى نجد دفاع ونجد كافي دعاء ذا النبي كد عيسى صلى الله عليه وسلم ثقة إلهي قفك وكقبه أيانا وحي كينيسا dhibaatooyin badan oo la doonayo haduu ducadaas Ilaahay ku baryo Ilaahay inuu kaga kaafiyo nabigeena calayhi salaatu wassalaam asagoo geed hoostii jiifa saxaabadiina ka kala tageen ayaa nin reer baadiyaha u yimid oo gaal ah seefta nabiga geedka saaran buu ka qaatay galka ayuu kala baxay waa la dul istaag markaas wuxuu ku yiri man yamna'uka minni maanta yaaga ka difaacahay seeftaadi ana haysta waan ku dul taaganahay cid kula joogtaa ma ay jirto yaaga ka mancinahay markaas nabigu yiri Allah mar labaad buu ku celi yaaga ka mancinahaya Allah mar saddexaad buu ku celi Allah seeftii baa gacantiisa ka soo dhacday markay seeftii ka soo dhacday ayaa nabigu qaato yiri man yamna'uka minni aniga yaa iga ka mancinahay markaas wax iga ka mancinahay ma jira maxaa yeelay asagu Ilaahay ma aaminsana Ilaahayna ma rumaysna laakiin nabiga sallallahu alayhi wa sallam qismeel dheer oo kamaala ayuu ka gaaray thiqada iyo kalsoonida Ilaahay ku kalsoon yahay qofka muuminka waxa la rabaa isagoo asbaabta la iimaanaya masna inuu Ilaahay tala saarto oo qalbigiisa mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu tala saarto marnaba aysan qalbigiisa ka bixin waxyaalaha yar yar ka asbaabta ah oo haysto inuu san ku kadsoomin baa la doonay wuxuuna barayaa magacaan oo kale in qofka muuminka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ogaado oo rumeeyo inay soo martay muuminiinta xaalado kala duwan oo ay khatar galeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka kaafiye sharta a'daad mawaaqif kala duwan oo quraanku inoo sheegay oo muuminiintu ciriiri ay galeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaafiye waxaana khayru mithaal noo ah qisadii badr cadadkooda muslimiinta intuu la ekaa iyo intii gaaladu ay la ekaayeen muuminiinta oo aan dagaal ku soo talagelin iyo gaaladii oo dagaal ku soo talagalay muuminiinta oo deegaankoodii ka soo fogaaday meel goodoonana jooga dhinac kastana gaala ay uga hareeraysan tahay wax u soo maciinayana ayna jirin Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaaladda ciriiriga markay galeen ayaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam in badan markuu Ilaahay bariyay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaa'ikati munzalin miyayna idinku filnayn in Ilaahay idin soo diro gurmad malaa'ig ah 3,000 oo la soo dejinayo oo ciidana Ilaahay inuu soo diro miyayna idinku filnayn bal fiiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciriiriga markay galeen sidaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharti a'daadooda uga kaafi bal waxaad eegtaa ghazwatul ahzab oo 10,000 oo gaala isku soo bahaysteen inay muslimiinta jirid gooyaan oo munaafiqiintii munaafiqnimadoodii la soo baxeen oo xaaladii khatar ay gashay oo halka kalxamaha dhuuntii naftii ay soo gaartay oo ciriiri iyo cabsi weyn la dareemay oo xaalad adag lagu jiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala markay Ilaahay bariyeen oo Ilaahay ay ku kalsoonaadeen oo waxay maciin ka sugayeen alla kaligiis u ahaa
أي إلهي سبحانه وتعالى أعداد دي أردن إلهي جبي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا إلهي بلن كمرنا مكبح ماي قوة إلهي عزك إلهي يأود إلهينا الدقيقة كتي ساعات كستوى كل شوكتا أديك أيا وحويان يقين إلهي أد يقين سنتهي هي الثقة إلهي أد كقبتد أيا ضعيفة أوه سعيد بلو فيرسو في صحيح البخاري عبد الله بن عباس وحيري حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة داس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار مركي ضبك اللي ذي أيا النبي إبراهيم يري حسبي الله ونعم الوكيل مركي قالوا اسكسوا بهايستين أيا كويرة النبي يري صلى الله عليه وسلم أي الصحابة دي حسبنا الله ونعم الوكيل إلهينا وكحفظي سبحانه وتعالى وأنا كبت باتي وأنا كافي هدون كان كون كإلهي بمامول إنسان كان ضعيف كمامول كأوهيو هي شرطه وكل دونه هيو هي تدبيرته ومليقه هيو وضعيف وحاكركي سكم ماموله هيا أود إلهي تدبيرته إلهي أيين كل جن كسرنا مامول كان إلهي بهست ولذلك بالفيري النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام ضبك اللي قريد النبي إبراهيم وإنتاس أو مدة الشدة هيي إبراهيم موسى قبين يا دمي إلهي سبحانه وتعالى قل يا النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولا قديش بدي وينيد أو فرعون لقضي عيد مديسي موسى عليه السلام ونحمر كما غرقومي من أيسن لقي بلو فيرسو الحوت لم يأكل يونس عليه السلام ملايقي وينا أو بدا قنت هذا يونس لقي مونا نعني من تابنن تدبير بني آدم كو أي سمين أيان يوحى أي ملايق أيان إيا تلذذ وحي ركوبا ويينا كو مرقلين يينا نهمي كو قلين إلهي سبحانه وتعالى كحرا وأساق كلية توب وأساق كلية بري وأساق أرمها أبندقو وقلبقا ظروفها إيا حوائجتا إيا نباتوين ككوهايستا إلهي سبحانه وتعالى أتضرع وأنا الليل كإنتا سوك عدد إلهي سبحانه وتعالى واكو كافنيا وأنا حقيقة أسقى إلهي الكافية أليس الله بكاف عبده ميونا إلهي أهين مد أدون كيسا كفين عدة أكبر قيس إلهي كما قنك عليس كوهيس إلهي نكا قاد ويدس إلهي سبحانه وتعالى شر الله أنت كوهيس إلهي عذر كينو كافي وكا قاد إلهي ويدس بريهاس iyo tuugmadaas waxa weeyaan waa waxa ugu qaalisan oo aan haysan qofka muuminka hubka uu haysto ku dagaalamaya waa ducada iyo baryaha iyo tuugmada iyo tadarruca ilaahay uu muujinayo yeyna ku murug gelin gaaladu waxa ay haystaan iyo waxay awood sheeganayaan iyo waxa akhbaarta aad maqlaysid qofka muuminka maadaama ilaahay uu rumaysan yahay fallahu wahdahu huwal kaafi jalla wa ala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم وشر الظالمين جميعا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين